kulanti wacan asxaabi meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada kanaalka Rimaafaka. Halkan maanta waxaan kugu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee filimka Good News. Filimka Good News waxa uu soo xareeyay lacago filimkan hit ku noqon lahaa maadaama lacago adag laga helay Isniintii oo ay tahay in uu soo xareeyay 13 karoor. Filimkan ayaa gacanta ku haya Delhi iyo hareeraheeda asigoona ganacsi fiican ka sameeyay halkaas. 4 maalmood lacaga uu keenay filimkan waxa ay gaarayaan 78 karoor waxa uuna sameyn karaa toddobaadkiisa ugu horeeyo ilaa iyo 115 karoor. Filimkan waa heedka afraad ee Akshay Kumar sanadkan sameeyo, mana ahna markii ugu horeysay xiddigan uu sameeyo 4 hits oo kala duwan. Sidoo kale 1994 ayuu sameeyay hits badan oo kala duwan, inkastoo labo ka mid ah sida Yidilagi iyo Elan ay ahaayeen hits sabab la xiriira qarashkooda aad u yara. Sanadkaana waxaa la daawaday 4 filim oo hits oo kala duwan. Dhanka kale, maadaama ay ahayd shalay sanad guurida cusub ee filimka Good News, wuxuu ku furmay bilow wanaagsan aroortii hore. Filimkan ayaa si ka wanaagsan u furmay Talaadada 5 maalmood marka loo eego Isniinta. Dhanka kale, waxaa la soo saaray 15 filim ee Isniintii koowaad lacaga ugu badan soo xareeyeen. Filimka Good News oo kaalinta shanaad ka galay 15 filim ee lacaga ugu badan soo xareeyeen Isniintii koowaad sanadda 2019. Filimka Good News ayaa ganacsi fiican sameeyay maalintiisa shanaad maadaama uu soo xareeyay 13 karoor qiyaas ahaan. Haddii uu xoogaa dhaafi lahaa ama keeni lahaa 14 karoor, hubaal waxa ahaan lahayd in uu galo kaalinta afraad maadaama hadda uu ku jiro filimka Sahu qaybta Afindida. 15 filim ee lacaga ugu badan soo xareeyeen Isniintii koowaad waa sidan socota. Kaalinta koowaad waxaa ku jira Hospital 4 asigoona keenay 34.42 karoor, balse filimkan waxa uu helay fasax. Kaalinta labaad waxaa ku jira filimka War waxa uu keenay 20.18 karoor asigana waxa uu helay qayb ka mid ah fasaxa. Saddexaad waxaa ku jira Kabir Singh waxa uu keenay 17.5 karoor. Afraad waxaa ku jira Sahu waxa uu keenay 23.78 karoor asigana waxa uu helay fasax. Filimka shanaad waa Good News waxa uu keenay 13 karoor. Filimka lixaad waa Yuri The Circle Strike waxa uu keenay 10.55 karoor. Filimka toddobaad waa Total Amal waxa uu keenay 10.4 karoor. Filimka siddeedaad waa Dabaka 3 waxa uu keenay 9.13 karoor. Filimka sagaalaad waa Baharaat waxa uu keenay 8.72 karoor. Filimka tobanaad waa Gully Boy waxa uu keenay 8.42 karoor. Filimka 11aad waa Misha Mangal waxa uu keenay 8.16 karoor. Filimka 12aad waa Kaysari waxa uu keenay 7.94 karoor. Filimka 13aad waa Bala waxa uu keenay 7.80 karoor. Filimka 14aad waa Luka Jubi waxa uu keenay 7.75 karoor. Filimkan waxa uu helay fasax. Filimka 15aad waa Kichor waxa uu keenay 7.70 karoor. Dhanka kale, filimka Good News ayaa sameeyay ganacsi adag waxa uuna keenay 60 karoor maalintiisa shanaad ama talaadadiisa koowaad. Filimkan ayaa keenay ganacsi ahaan 5 maalmood 94 karoor. Maalmaha ugu muhiimsan waxay hadda noqon doonaan Khamiista iyo Jimcaha maadaama kuwaasi sheegi doonaan halka filimkan uu aadi karo. Waxaana halkan u eg warbixinada maanta ku soo qaadanay filimka Good News. Fadlan subscribe saar, gabalaalka riix si video walba muuqaal walba uu kugu soo dhaco.